maanta iskugu nimidnay waxa weeyaan hadii Ilaahay raali ka noqdo inaan ka hadalno haweenka oo ah laf dhabartii inaga kootadan ay noo diidayaan hadii aynu bartaa dhigno inuu isku dhaqaaqno hadaynu haweenahay waxaan qabaa inta dumar soo baxday inaanay rag soo baxeen waayo haweenku waa kuwa kaliya ee dulqaad u leh in maaragtay ay u yeeshaan samir badan kuyuuga dhibaatada ololaha wax kastaba marka in layna dhayaliyo maaha wixii diintu aanay noo ogoleyn ee diintu inoo diiday raadin mayno oo ma rabno wixii si ay diintu noo gashay in haweenku helaan xaq bay u leenahay marka waxaan diidanahay 2005 xeerkaas ee kuma jiro xeerka kootadu ee haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay loo diidan yahay kuma jiraan marka inaanu helno oo xeerka aanan ogoleyn ayaan jecelnahay ragayga inaan u bandhigno afkaan ku hadlayaana uu yahay afka la danagaad waxaan kamid ahay xisbiga kulmiye waxaan nahay musharaxad u taagan golaha baarlamaanka marka aad eegto Soomaalida hareeraheena dawladaha hareeraheena iyo caalamkaba goob kasta oo baarlamaan haweenku waxay boqolkiiba 30 40 50 sometimes qaarkood ka horumaray ka helaan marka Soomaaliland haween ma jiray leeyahay waxa weeyaan dawladeena iyo saddexdan sharci goladejineed waxaynu ka rabnaa wixii in meel la saaro haddaanay ahayn anagu dumarka anagoo afka lixda gobol ee haweenka Soomaaliland ku hadlaya waxaan cod dheer iyo cod gaabanba u diraya inaanay wax odayn la yiraahdo anaan ka qayb galin inaan doorasho anaan ka qayb galin inaan qaadacno saddexdii gol xisbi qaran waxay go'aan ku gaareen in doorashada lagu golo sidii 2005 haween kootada haweenku way ka maqan tahay dadka laga tirabada way ka maqan yihiin markaas wax lagu dooranayaa hadii ay maxay leedahay haweenku waanu ka maaranay oo haweenka laga maarmay waxaan haweenka Soomaaliland soo jeedinayaan baaq u dirayaa inay gurigooda iska joogaan cidna aanay dooran saddex xisbi qaran weyn ognahay waxa halka gaarsiiyay waa dumar cidda cad u taagan waa dumar cidda soo saartay waa dumar cidda dawladda dooratana waa dumar maanta cod gaababa waxaan ugu diraynaa dhammaan hay'adaha ay khusayso oo dhan ayaan u diraynaa in la ogolaado oo la meel mariyo in kootadiina khasab sindulle waliba ma barayno la noogu ansixiyo aynaanu galno dagaal ka dhana ya wala dawlad wala rag dumarku boqolkiiba waa 5 iyo 6 ayay ka yihiin dadka maadaama inta kan ay hablaha musharaxiinta waa in aad u codeysaan qofka ragga siinayeen allagugu sisibay waa artiga oo walaalka waa in adeerka waa kan midnaba ka diida in adeerka haduu maanta galo meesha adiga maanta ku dambeeyay dab ka wada soo taaneen aan islaahay aanay dumarka u diidayaan waxba qarsanaya dalka in wax loo qabto lama rabo dadka in wax loo qabto lama rabo haddaan halka tagnana waxbaan fashilinaynaa waxbaan qabanaynaa waxbaan waxaan ahay ururkayeen xisbiga wadani waxaan ahay musharaxad u taagan golaha deegaanka anu dawladda u dirmaayo baaq laakiin haweenweynahan u diraya baaq ay kaga tashanayaan ayagu inayna doorasho dambe dib u gato hadii haweenku kootadooda loo furi waayo maanta in arrinkaasi maanta dhacay ay hablaheenu ka wada sheekanayeen aad wada ogtihiin in ay ahayd maanta xuquuq aan lahayn kootadaas inaynu haweenka helno Soomaaliya sida ay sheegtay qadra waxa ay kullaysanayaan soddonkii hore loo siiyay ayaa ku yaraaday maanta inaga waxa kaliya ee ayna siinayaan ee walba intaas hadal ka taagan yahay waa 18 gobol walba 3 qof kaliya oo 3 xisbiya taasi anaga rajadeedu waa ka weynado markii hore waxaan ka doodaynay in kootada la kordhiyo ma fahamtay maadaama ay sidaas tahay maanta golihii baarlamaanka kolba dhinac bay noogu seexanayaan markay arkeen in hablihii Soomaaliland soo jeedaan inay doonayaan inay xukuumadda ka qayb galaan waxa ay kolba dhinac inoogu seexanayaan shalay bay ahayd sanadkii hore markii ay yiraahdeen 2 sano ayaan kordhisanay maantii laga yeeli waayay ee u suurtoobi weyday waxay maanta ku soo meeleysteen waxa weeyaan in la kootadeeni ودكتين إن القلادة بدن الشرانة هواين كأيهور تاجيه جارحان هواين كمشرح لماذا ضغني هن كسياسة له القلادة بدن بهور تاجن القلادة بدن بهور تاجن حق كوة كوينو أينو دورني أينو مرقني مال كده أينو سيني أينو كراسي جينا بينو هور تاجن وأنا إن دولين إن وحل قيبسن مرحدي أي إسرات هينا إنه ودي أينو هواين هاي حلينو جبهي هاي inaynu xuduudeena taageero u muujino haweenkeena musharaxa
أولا إلهي سبحانه وتعالى ومهز كله isugu keenay kulankan sharafta leh haween weynaha gobolka Sool kuwaas oo ka kala socda xisbiyada iyo laamihii dawladda waxa weeye halka kulankan waxa la isugu yimi baaq loo dirayo xukuumadda Soomaaliland iyo golaha wakiilada taas oo ah in kootadii haweenka loo sii daayo haweenka gobolka Sool hadii aanu nahayna ma gali karno doorasho noomana cuntantood doorasho aan lahayn kootadii marka waxaan codsanaynaa in loo sii daayo kootadii haweenka u cayimnayd haday tahay golihii deegaanka iyo golaha wakiilada saas ayaan ka codsanaynaa xukuumadda Soomaaliland iyo golaha wakiilada waxa weeye in haweenka in Soomaaliland kootada horta waa lagama maarmaan weeye waxaan laga maarmaan u tahay baan idin sheegayaa waxa weeye horta haweenku iyaga dhaqaalihii awal aqoon la'aan baa lagu xaman jiray hadda dhaqaalihii aqoontii iyo dhalinyarada bulshada iyaga wax fahmay iyagaana in aaminaad ay ku qurux badan tahay hadda wax walba iyaga in mas'uulka aad iyaga u ah iyaga in amaana xajiya marka saddexda xisbi qaran iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo baarlamaanka golayaasha baarlamaanka iyo golayaasha gurtida waxaan u jeedinaya codsasho maaha waa jeedin dhaba inay haweenka kootadooda meel saaraan baaqban waxaan u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi golaha baarlamaanka golaha gurtida labada xisbi qaran saddexda xisbi qaran waxaan leeyahay nagu dara kootada oo hana loogu daro inaanu xaq u leenahay oo aanu leenahay in aan ummadda hoggaanka wax ka qabano koota la'aan ma geli karayaan doorashada aad anagu wasaaradda haddaanu nahay u taageeraynaa barnaamijka doorashooyinka golaha deegaanka iyo baarlamaanka kalena shaqaynayna qolyaha u tartamaya waxaan aad u soo dhaweynaynaa in aanay koota la'aan wax doorasho ay noogu qabsoomaya aysan jirin kootadana la noo sii daayo haddaanu nahay shacab weynaha reer Soomaaliland codsanaynaa in naloo ka codsanaynaa jamhuuriyadda madaxweynaha iyo xukuumaddiisa jamhuuriyadda Soomaaliland in naloo meel mariyo oo doorashadana loogu qabto kootadii naloo meel mariyo oo aanay anagu diyaar u ahayn ama aanay noo cuntamin doorasho saamiga iyagii koota ka maqan yahay waxaan codsanaynaa xeer bilaa koota inaan dumarka loo soo dejin oran waad ka tartami kartaa ama golayaashii waad ka mid noqon kartaa iyadoo xeerkii kootada aan la hirgelin qoladan baarlamaanka ee inantan halkan kaga nuuxnuuxsanaysay in adeertay dee wax waliba baalbay leeyihiin ay ku duulaan baalasha ay kuraasida ku fadhiisteen dumarkaa siiyey halkii dumarku baalasha ay ku duuleen ay kuraasida ku fadhiisteen ay siiyeen bay weli annagii halkii nagu ilaaween oo ay nagaga tageen hal mid baan maqlayaa inay ku jirto golaha baarlamaanka waa yahay markaa wuxuu yidhi nin la yidhaahdo aadan tarabi jaamac baa gabaygiisa waxa ku jiray oo wadaadkii berigii hore la hadlaayay animan idhi darkaa ceelka dhuro dawliskana hayso misna diiday mar inaan darsado aan dibnaha saaro dusha iga jir dantaydana ha gelin diiday baan idhi waxaanu idin leenahay in ragow haddaad tidhaahdaan waxaanu isu sharaxaynaa golaha deegaanka kuwa idin soo saaraa waa dumar ee guculaynaya ordaya ee carruurta ka tegaya ee guuraynaya ee bacadka taagan ee dhaxanta taagan ee siigada taagan ee baahida taagan ee ilmahoodii yara qatan yahay haddaad tidhaahdo baarlamaanka waa sidoo kale hadday tidhaahdo guurti waa sidoo kale wax kasta hadday tahay suldaan iyo caaqil waxa idin barbar taagani waa dumarka halgankii SNM waxa waqtigaas soo gaarsiiyey sidii inantu u sheegaysay dumar bay ahayd dhaawacay guri jireen lacagtay bixin jireen maydkay qaadi jireen oo garbasaarooda ku xambaari jireen been maaha way ogyihiin Soomaad garan halkii laga rabay maalinta la nasto in dumarkii soo halgamay iyo kuwa joogay iyo qaar walba wax laga dhigo maxay noqotay geed hadh seexo kursi isku ruux dumarkii aan dib loo eegin saacada loo baahdana kaka waxa tiraahdaa saacada loo baahdana dumar ragow yaa maal jiray heblaayay hebel baa murashaxay kaka waxaan leenahay wixii waanu ka baraarugnay haddaanu dumarnahay waanu iska daynay waxaanu maanta diyaar u nahay oo aanu u taaganahay haddaanu nahay haweenka gobolka Togdheer
waxaanu u taaganahaanu diyaar u nahay kootadaana la siiyey in baarlamaanku si degdega uu noogu ansixiyo annagiyo qolyaha kale ee tirada badan yahay madax meel ka sarreeyo la taabtaa ma jirtee waa in shuruucdii lagu soo daraa waxaan door biday inaan baarlamaanka fadhiisto markaan haddii ilaahay yidhaa anigu anoo idinku duulaya codkiinna iskuna halaynaya haweenweynahayga gobolka togdheer inay dooran doonaanna aan rajaynayo haddii anigu lay dooran waayana dee kuwa soo baxayaaba waa hablo 3 hablood baa laynooga baahan yahay gobolka togdheer aad iyo aad waxaan idinku boorinayaa inaad 3 hablood doorataan haweenka gobolka togdheer inaga oo muujinayna cududeenna oo ay nagaad inoo soo abaabushay si aynu uga muuqanno maxaan ku dhahaayay meelaha aynu xaq ku leenahay sida baarlamaanka siyaasadda kale businesska wax walba oo dumarkii laga dhinac looga saaray marka waynaynu xubinteena aynu muujinaa oo aynu si wada jira isku caawinayo inuu muuqanaa maanta oo aynu cududeenna taageero u muujinayno baarlamaanka oo ay waraaqeena hor yaalin horta madaxweynaha Soomaaliland aad iyo aad baan u salaamaya iyo golihiisa wasiirada xisbiyada qaranka waxaan leeyahay ilaahay idin xafido aakhiriya adduunkaba sida aan noo sharafteena haweenka u sharafteena Allah idin sharfo baarlamaankana waxaan u leenahay war baarlamaano wanaga meesha idin keenay xaq waxaanu u leenahay noo ansixiyo ha nagu soo celinina mar kale waraaqaha madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada ay idin keeneen iyo muxuu ahaayeen 3 xisbi qaran haddii aan nagu soo celisaan waxaan anugu qabaa dumarku inay tashan doonaan doorashana aanay dhicibad idina aydan kuraasi heli doonin ansixi baarlamaan ansixi kuraasida noo bannaan ansixi baarlamaan ansixi kuraasida noo bannaan laakiin waxa dhici doonta haddii ay qoondada ka jawaabi waayaan sida ugu dhaqsaha badan leh inaguna aynan ka jawaabin doonin maalinta inoo baxda qof walba maalin buu leeyahay de markaa waxa weeyaan barbarka ka baxda waa bakeela qaleen haddii maanta inoo soo jawaabi waayaan waxa weeyaan hadhow toole dumarow dee ha noqonina waayo midna waad u dhaxday midna waad ka dhalatay kii aad ka dhalatana meel kuma hayo kii aad u dhaxdana meel kuma hayo lama heleen xornimadii Soomaaliland haddaanay haweenku garab taagnayn oonay mid waliba kicinin inankeeda oonay mid waliba kicin odaygeeda oonay mid waliba kicin wiilkeeda iyo walaalkeed mid waliba kicinin horta lama heleen qaranka Soomaaliland baadidoonkiisii waxaynu ka ahayn qayb aad u weyn baynu ka ahayn waxaynu la garab ordaynay biyaha weysada waxaynu qaadaynay dhaawaca waxaynu qabanaynay inaynu mar walba saadka iyo maxaan ku dhahay waliba lacagtaba la dhinac taagnaano oo aynu maxaan ku dhahday wax walba raggeena dhinac istaagno ayaynu horta horumar weyn ka soo geysanay laakiin inaku ma ogin ee waynu yasanahay oo meel dambe ayumaynu mar walba fadhinaa kootada waxaynu leenahay haddaanu haweenka nahay dooni mayno mana rabno oo waanu ka soo horjeednaa sharci kasta oo ka hor imanaya kootada haweenka oo diidan oo ka hor imanaya waan ka soo horjeednaa baan leenahay waxaan leenahay kama qayb galayno mana dhacayso doorasho aan haweenku koota loo xidhin kama dhacayso gobolada waxaan leenahay cid walba oo maxay hayteen waxa weeye diidan kootada haweenka annaguna waan diidanahay mana ogolaan doono inay doorasho bilaa koota ay dhacdo waanu diidanahay haddaanu nahay haweenweynaha gobolka Sanaag waxaanu u taaganahay kootadii haweenka kootadaas oo qodob kasta oo diidaya kootada haweenka annana aanu diidano dooni mayno wixii aan qusayn haweenku waxaanu ragga u sheeganaa haweenku inay iyagu codeeyaan rag baa hor taagan xeerkan oo le kootada dumarku ma ogolin annagana ragga waxaanu u sheeganaa haddaanay kootadayada ogolayn inaanaan codaynayn waxa codeeyaa dalka waa haween iyo dhalinyaraduna annagaa dhalay gurigayaga joogtaa haweenkiina annagaa ma codaynano waxaanu leenahay kootada haweenka haddii aan la banaynin wax allaale wax naga suurtoobayaa ma jiraan waxa aad isku halaynaysaan ragow waa haween iyo dhalinyaro haddaa banayn weydaan hadhuu madhan baa qaadanaysaan haddaad si aad noo banaysaan kootadayada annaguna gacmo furan baan idinku soo dhaweynaa weydiisinaa wixii hiil iyo hooya noo baneeya baarlamaanka iyo guurtida waxaan leeyahay miiskiina hortaallaa ku dhufta
annaga kootadayada waana la siiyey madaxweyne waana siiyey maxaad noogu dhigantiin caqabad naga ka dhigay idinba waanu idin soo saaraynay naga daaya gardaamada haweenka reer Soomaaliland waxaan leeyahay meel kasta aad joogtaan shucuurtiina muujiya mudaharaad salmiyeenu samaysanaynaa hadday kootada ka banay waayaan waxaynu u bannaan baxaynaa inaynu xuquuqdeena rag baa ku fadhiya waxa odayaya haween waxa codka bixiya caruurtooda hadday diidaan wax allaale wax odaynaya oo dalka ka jiraya ma jiro mudaharaad baa dhacaya waana loo shaqaynayn waa isbedel baa imanaya waxaanu leenahay xeer kasta oo hortaagan kootada dumarka waanu ka soo horjeednaa mana ogolin hana nagu tashanina mana codaynayno mana soo baxayno noo baanu leenahay haddaanu codaynay noo baanu maanta doorashada kuwii hore waa la ogaa doorashada maanta imanaysa waa garanaysaan waa maalinta qura raggu ina baryaan inaadeer eedo habar yar walaal nabaryada ka faa'iideysta maanta raggaasi laba jeer un bay nabaryaan habeenkan albaabka ka xiranay maalinta doorashada inta kale waxba isku maniin baryada jaaniska ha sii deynina hablaha doorta baarlamaanka iyo guurtida iyo cid kasto ay khusayso iyo hay'adaha ay khusayso waxaan ku boorinaynaa in kootada haweenka la sii daayo habluhu ay kuraasida yimaadaan raggu had iyo jeer mooshin bay ka shaqeeyeen anagu mooshin kama shaqeynayno waxaan ka shaqeynaynaa danta ummadda inanka tahriibaya waxbarashadooda amniga golaha baarlamaankana waxaan leeyahay maadaama madaxweynuhu noo ansixiyay 18 xubnood gobolada haween ahaan bal hadda waxaan leeyahay baarlamaanka waan idin soo saarnay oo shalan idin shaqeynayni bal hadda maanta waxa idin hor yaala koontadayadii waxaan idin leeyahay anoo ansixiya waan idin baryaynaa si ixtiraam iyo sharaf iyo qadarin ku jirtaan idin la hadlaynaa annaga oo isa soo saari karayna haddana maadaama aanu laba qolo u kala jabnay inantii aan qolaba ahayn oo cidla taagantay baarlamaanka waxaan ka codsanayaa inay koontada noo ansixiyaan insha Allah bismillaah kan wuu hor yaala dastuurka noo furaan kow anigu wata musharaxad baan ahay goobaha deegaanka ah waxaan leeyahay kootada madaxweynuhu ansixiyay baarlamaanku goobaha wakiiladu inay fasaxaan oo haweenka markooda jaanis siiyaan oo 18 ka hablaha la ansixiyay gobolada Soomaaliland oo dhan habluhu gacanta isqabsadaan anigu waxaan ku ballan qaaday inaan musharaxada oo maanta baarlamaanka soo baxaysa haybtay doonta ahaato Soomaaliland inaan anigu gacanta qabto oo nugu codeeyo codkayga xaqa ah yaan ku ballan qaaday kootada waxaanu leenahay golaha baarlamaanka madaxweynaha nalaankiina danaynaya mudane madaxweyne wadigiisa noo daadiinayay ee berberaan ku codeynay ee kula halgamaynay nin walba oo maanta meel fadhiya badan nooga faradhoodhoban kootada dumarka baarlamaankana waanu doonaynaa degaankana waanu doonaynaa habli reer berberna codkooda way intii aad nagu xukunto waanu goosanaynaa waa soo dhaweynaynaa in haweenka Soomaaliland masraxa siyaasadda in ay soo galaan si muglabaanu madax dhaqameed ahaan soo dhaweynaynaa waxaanan u aragnaa inay xaq u leeyihiin haddii kootada ma garanaysaa loo xidhayo oo qoladan xisbiyadu ayagaa dabada giijinayo waxaad moodaa muddo inay markaa arrinkaasi ay ka yara cagajiidayeen ay arrinkaasi soo dhaweynayaan iyo golayaashu annaguna ka madax dhaqameed ahaan waanu taageersanahay waanu idin ogol wixii shariicada islaamku idin ogoshay inanka iyo inanta noo yimaadana anigu waxaan ballan qaadayaa inaan inanta horeysiyo haddii shariicadu u ogolaato markaa nafta u sheega sidaa war hablaha idin naxariis dhaamee maydu geysan waryaha kaad guurtida geysay isagunbaa kordhistay kaad baarlamanka geysanay isagunbaa kordhistay tiriibkan waxaan idin leeyahay hablaha doorta rag loo bixiyo leeyahay haweenka maxaa ku sameeyaa diidayaa dee ma jiro waxay shariicadu ka hor joogsato shariicada anagu shiri maro jebin mayno wixii aanay shariicadu ka hor joogsan ay xaq u leeyihiin aanu aragnay saddexdii xusbi qaran ee talada dalka aanu u igmannay inay ka leexdeen marinkii iyo waddadii aanu shalay kula soo heshiinay kuna soo doorannay
haweenka halkan joogay annaguba annagaa xusbiyada qaranka xusbiye qaran ka dhignay laakiin saddexda gudoomiye xusbiyada kamay dhigin xusbiye qaran xusbiyadii kalena annagaa ka jeclaanay inay saddex xusbi qaran oo dalkan mataliya dadkiisaba inay noqdaan saddexda xusbi qaran iyo hoggaankoodu waxay si cad shalay uga baxeen heshiisyadii cadcaddaa ee ay nagula galeen madalaha wakhtigii aan xusbiyadoodu aanay ahayn xusbiye qaran ee ay ka mid ahaayeen ururadii qaranka waa ayaan darro iyo nasiib darro dalka ay u soo hooyeen waxaananu leenahay malaha waxa marin iyo maanbambasha waxa maankooda iyo qalbigooda ku soo dhacday inay dantooda gaarka ah ee xusbigooda iyo shakhsiyadooda un ay ka taliyaan kamay talin baanu leenahay danta iyo aayaha qarankan ummadaha iyo qoomiyadaha iyo shucuubta ku wada nool ee lab leh ee dhadig leh taasina waxay dhaxalsiin doontaa iyaga waxba la'aan dhammaan ka qaybgalayaashu ay soo dhaweeyaan isla markaana taageersan yihiin dhammaan dumarka ka qaybgalaya doorashooyinka nooc kastoo tahay gaar ahaan golayaasha deegaanka ee soo socota dawladdu waa inay fulisaa xeerka la ansixiyay ay ka midka yihiin tacadiyada dhammaan ka soo horjeeda dumarka iyo caruurta maadaama xukuumadda iyo golaheeda wasiiradu ansixiyeen oo ay gudbiyeen qoodada haweenka oo ah 22% una gudbiyeen golayaasha sharci dejinta si ay uga gutaan waajibaadkooda ah in la ansixiyo waxaanu ka codsanaynaa labada aqal baarlamaan in qoondada haweenka la ansixiyo sidoo kale saddexda xisbi qaran waxaanu ka codsanaynaa in ay fuliyaan ballanqaadkii 30% qoondada haweenka ee ay hore ula galeen haweenweynaha reer Soomaaliland waxaanu idinka rajaynaynaa inaadna karaamayn doontaan oo aad dumarka sharfi doontaan idinka oo eegaya kaalinta ay kaga jiraan bulshada iyo sidoo kale baahida loo qabo tala soo jeedinta haweenka iyo arrimaha haweenka u gaar tala soo jeedinta arrimaha haweenka u gaarka waxaanu si gaara aanu ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha baarlamaanka iyo dhammaan kokaska ka shaqeeya riixidda taakulaynta iyo u doodista qoondada haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay runtii waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa oonu kala kulannay war hididiilo leh gudoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanadii ay hogaaminayeen kokosku oo noo ballan qaaday inay riixi doonaan kootada qoondada haweenka waxaanu idin leenahay ma suurto geli doonto inaad tidhaahdaan annagaa waddanka iskala kelidayo haddaba maanta waxaad tihiin hogaamiyaashii dhaqanka ee loo soo maraya gabdhaha oo ay u soo marayeen sidii ay u noqon lahaayeen musharaxiin ee ay axsaabta uga soo bixi lahaayeen waxaad tihiin maanta furihii sababtoo ah dee gabadh aan idinka wadan ogolaansho ama wiil aan idinka wadan ogolaansho looma ogolaado xisbiguna uma ogolaado inuu musharax ka dhigo marka waxa weeye dee wiil iyo gabadhba waa u siman tihiinoo waxa weeye waa inantiinni iyo inankiinni weeye mid waxtar badanna dee ilaahay baa og waana kala og tihiin horena waa u soo aragteenoo intaa sano waayo arag baynu ku nahay in maanta dee gabdho badan lagu liibaanay oo ay dhibaatadii inaga soo saareen marka waxa weeye aan maanta idinku maaragtay maxay ahayd boorinaynaa haddaad tihiin madaxdeennii sharafta lahayd ee dhaqameed in aad wiilasha iyo gabdhaha aydinaan u kala eexan oo aydinaan garbin gabadha haddaa ku aragtaan gabadhaasi inay waxtar leedahay oo ay waxqabad leedahay karti leedahay ra'yi leedahay oo waayo dee way idinku soo jirto beeshii iyo bulshadii bay ka mid ahayde inaydinaan maaragtay wiilka idinkoo wiilkoo idiin soo adeegsanaya dee inankii baan ahay reerka iyo inankii baan ahay maya dee gabadhuba waa dhasheenoo waa gabadhii reerka mid waxtar badanna dee ilaahay baa og waana ogtihiine inaydinaan maanta u kala eexan ee gabadhii idinla timaada han siyaasadeed baan qabaayo maanta adeerow iigu jiid saxeexa ee laygu xidhayo dee inaad maaragtay cadaaladda ka shaqaysaan oo idinaan u kala eexanin xil baa idinkana idin saaran xilka idin saaran waxa weeyaan inaad dadaal dheeraada muujisaan oo kartidiinna muujisaan ood ku soo baxdaan waxa aad qabateen wanaagga aad samayseen horumarka aad hawsha aad haysaan aad ka gaadheen
ama aad cid kale ka gaadhsiiseen waxaan doonayaa tiina jilicsan inaad idinku kobcisaan ama marka horeba qaybta ka saarta inaga daatana mateli kara maysee laakiin aad noqotaan kuwii u soo dhaciya dalkan iyo dadkan iyo ummaddeenna horumarka xaawalaydo ay ka buuxdo ay keeni lahayd inaynu ka wada howlgalno ayaan idinka filaya waxaan doonayaa doorashooyinkan soo socda inay noqdaan kuwa haweenku ay muujiyaan cududooda iyo caqligooda waxtarkooda ay ku muujiyaan oo xisbiga aan muujinin aan la shar imanin qayb cadaaladii ku jirto in xisbigaa la qaadaco why not hadduuna qaadaco annaguna waanu qaadacayna hadduu haweenka xaqiro te waa la xaqiri hadduu cadaalad wax ku qaybin waayo te isagana cadaaladii meel kale ha u doonto haweenka uun ka heli maayo af baanu leenahay adin baanu leenahay keliyaanu leenahay jeebadaanu leenahay microfonaanu leenahay waxyaaba ilaahay hayna soo hadeeyo ilaahay haweenkana cadaaladda ay filayaan oo xalaala oo wanaagsan ilaahay ha u soo jeediyo ha u badiyo inaan ragna cadaalad darradan aanu ka tirsanayno iyagana ilaahay maskaxda ha u soo hagaajiyo bal ha ka dhigo raga oo cadaalad iyo sinaan wax ku qaybinaya wax ku hogaaminaya oo dabeetana aanu barbar garno taageerno oonu la shaqayno oo wax la qabanno oo ummadeennuna waxtar ka hesho UN-ku ha noo horseedo oo ha bilaabo gender equity ha noo bilaabo meeday proportionkii females ku lahaayeen representationkoodii ha ka dhex aanu ka dhex aragno wixii aadna barteen inaad ku dhaqmaysaan aan aragno oo international agenciesku ha ku daydeen markaa UN-ka wada UN waa ka loo abuuray inuu ahaado dhexdhexaad ahaado oo uu hogaamiyo waxa wanaagsan cadaaladda sinaanta eexla'aanta horumarka nabadda kobcinta bulshada waxaasoo dhan baa UN-ka loo sameeyey looma samayn inay noogu horseedaan inay qabyaalad ku sameeyaan haweenka looma samaynin ma sahlanaanayso waxaan taa fursaddaa taa idinla wadaagaya maaha inagoo kaleeyaan inaan rag kuweenna uun yaanan burhka la dhicine inaan rag caadadaa xun qayb xumaantaa wuu leeyahay meeluu joogaba bal ma isku daynaa inaynu wax beddello bal hadda ma isku daynaa inaan wixii wanaagsan ee aynu aragno ee haween qabanayaan aynu kobcinno shajcinno dhiirigelinno taageerno waayo waxay u baahanayaan confidence waxay u baahanayaan haweenkan cadaadiska lagu samaynayay boqolaal sannadood cadaadiska lagu samaynayay dhiirigelin bay u baahanayaan oo waxaanaad ku qortaan dastoorka ina ragow waa la siman yahay oo ku qortaan inaad dhabaysaan baa la rabaa baarlamaankan halkan ii fadhiya ee xabad xaawali ku dhex jirto miyaanu xishoonayn miyaanu isla yaabayn dastoorkiina wuu ku dhex jiraa bal waa kaasee qodob taabanaya wax inaan rag leeyahay durtaba waxaa la soo saaraya 20 qodob article hebel qodob hebel ayaa arrinkaa diidaya qodob hebel markiiba la soo booday way wada xafideen haweenweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxay soo saareen baaq ay u dirayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland labada gole ee jamhuuriyadda Soomaaliland saddexda xisbi qaran ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo komishanka doorashooyinka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa aanu codsanaynaa xeerka doorashooyinka ee ay ku jirto kootada ama qoondada haweenka iyo dadka la haybsooco in ahmiyad gaar ah la siiyo waxa kale oo aanu maalmahan maqlaynaa in ay soo baxeen tuhunno lagu qaadacayo ama lagaga saarayo kootada haweenka xeerka doorashada waxa aanu ka digaynaa xeerka doorashada oo ay ka maqan tahay qoondada haweenku inuu noqdo ka maanta lagu galo doorashada jamhuuriyadda Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland rag iyo dumarba
way u siman yihiin xaq baana u leeyihiin waxa aanu doonaynaa xeer ay ku jirto kootadii ee uu madaxweynuhu soo ansixiyey iyo golihiisa wasiiradu in lagu galo doorashada maanta ay nagu soo socotaa waxa aanu baaq dheer iyo mid gaabanba u diraynaa golayaasha qaranka waxa aananu ka soo horjeednaa haddaan nahay haweenka jamhuuriyadda Soomaaliland doorasho lagu galo qoondada xeer ay ka maqan tahay qoondada haweentu wabillahi tawfiiq